بري وشان يتبان كمي وأمانة الأساسي أروكي دلنيرة وأنا أمانة دلنيرة الصوماليات أروكان وحو كشقيني إن مدأبة بل سيدي لو مدين لها دلنيرة الصوماليات ما دام قرن كويلاتنا لو جرو لو باهي اسبدل إن لا سمايو قربها ولا قد بيهاي رجي هوين ولا بيهاي دلنيرة عرور marka inta aan la gaarin dalkii hooyo waxa loo baahay inta bal qurbaha isugu timi in ay iyagu raadiyaan xuquuqdooda waxa ay xaq u leeyihiin sida u midoobi lahaayeen sida u wajihi lahaayeen bal kuwa kale oo dhibaataysan in ay iyaguna dhibta ka saaraan waxa barnaamijka maanta marti noogu ah oo aan filayaa ururka wadaniga Soomaaliyeed gudoomiyaha ururka wadaniga Soomaaliyeed Cabdullaahi Jaamac Maxamed waa gudoomiyaha golaha dhexe ee ururka wadaniga Soomaaliyeed oo jooga Toronto Canada waxaan filayaa sawirkiisa in halka ka aragteen gabadha kale oo idin la yiraahdo Saara Cabdi Xasan oo gabadhii aas-aastay ururka wadaniga oo joogta Holland waxaan filayaa in iyaguna marti noogu yihiin khadka telefoonka waxaan u maleynayaa hadda diyaaranahay waa ku jirnaa khadka Cabdullaahi waa ku salaamaya halkan waxaa fadhiya dhammaan bahda Sama TV waxaa kaloo fadhiya engineer Daadiro oo ah ardayda wax ka barata gobolka Minnesota adeer Cabdullaahi Guuleed oo kamid ah madaxdii Soomaaliyeed haatan qurba joogta ah oo maanta inoo taariikheynaya imaamka kusoo dhawaada barnaamijka Sama TV waxaan filayaa dadweyne fara badan inay daawan doonaan Cabdullaahi waxaad ku sugan tahay dalka Canada filayaa yes magaalada Toronto ee dalka Canada ayaan ku suganahay saaro iyadana ma ku jirtaa khadka mase waa ku jira walaal Ismaaciil saaro adigana waan ku salaameynaa waxaan filayaa inaad ku sugan tahay dalka Holland walaal ma santahay dalka Holland ku suganahay saaro kusoo dhawaada waxaan filayaa maanta in bari inay tahay 15 May maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed xaqiina inaad uga diyaariseen dabaaldegyo aad u badan oo aad kullu meesha aad joogtaan meel walba yaa joogay leedahay marka Cabdullaahi aan ku hormaray Cabdullaahi ururkan wadaniga Soomaaliyeed xilma la asaasay waa maadsan tahay marka hore waxaan halkan mahadnaq uga soo jeedinayaa bahda Sama TV dhammaantiin dhalinyarada TVMA engineer Guuleed fursadda aan siiseen haddii aan nahay bahda ururka wadaniga Soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shacabka magaalada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis ee daawanaya idinkana waa salaamantiin ururka wadaniga Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 15 May 2008 aasaaskiisana waxaa lagu beegay maalintaas 15 May oo ah maalintii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL Cabdullaahi waa maxay ujeedada ururka loo asaasay bal haddii faahfaahin dheeraad aadna siiso ujeedada ururka loo soo aasaasay waxay ahayd haddii aan kaaga soo bilaabo 2008kii marka ay cadowga Ethiopia ay kusoo duushay Soomaaliya waraysi ra'iisul wasaaraha Ethiopia la siiyay laga yeeshay hadaladiisa ayaa waxaa kamid ahaa su-aashii la weydiiyey waxyaabaha ku sahlay inaad Soomaaliya gasho oo si sahal ah u qabsato wuxuu yiri Soomaalidu ma laha dad wadaniyiin marka beentaas uu naga faafiyey darteed ayaan waxaan muujinay inaan u muujino caalamka inay jiraan wadaniyiin Soomaaliyeed sidoo kalena xaaladda Soomaaliya lagu jiro waxay dib ugu noqotay xilligii gumaysiga marka oo qarnimadii Soomaaliya iyo madaxbannaanidii Soomaaliya ay burburtay shacabkiina baaba'san yihiin marka in shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin dhalinyaro wadaniyiin ah oo sidii kuwii SYL oo kale ah u soo istaaga dhibaatadooda isku soo xira dhalinyarada kale ee wadaniyiinta ah ee kala firxaday oo adduunka daafihiisa ku firxaday inaan u sameyno urur mideeyo oo isu keena si codkooda u noqdo awood soo celin karta madaxbannaanidii Soomaaliya dhibaatada lagu jirana looga bixi karo marka aasaaska ururka ujeedadaas ayaa ka dambeysay Cabdullaahi aad baa u mahadsan tahay bal waxaan filayaa inaad daawadayaasheena aad ka dhaadhicisay qaabkii uu ku yimi ururkan hase yeeshee Cabdullaahi waxaa jirta in Soomaaliya maanta 20 sano uu ka jiray dagaal sokeeye dhalinyaradii maantana ay meel kasta ku baahsan tahay dhibaatooyin fara badan ay haysato dadkiina ay aad u dhiban yihiin marka qaabkee baad u malaynaysaa inaad ku wajihi kartaan arrintan soo wada dheer oo aad u adag idan kama horeysa Cabdullaahi wada dheer aad u adag naga horeyso inta badan waxa farta lagu fiiqaa oo la yiraahdaa kaalintii dhalinyarada
ummad sideedaba waxa badbaadin karo waa dhalinyaradooda usoo kacda shacabka Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya maanta resource kaliya ay haystaan waa dhalinyarada marka kaalintii dhalinyarada si ay u muuqato waxay u baahan yihiin urur ay ku midaysan yihiin role model dad ah oo ay ku daysadaan marka focus hadafka ugu weyn ayaa waxay tahay inta Soomaali maanta aaminsan wadaninimo Soomaalinimo adduunka caalamka ku firxaday inaan isku soo xirno aan ka dhigno majority cod buuxan ay yeeshaan cabdullaahi aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa markan inaan iyadana sahro aan dhinaceeda ay wax nooga taabato bal ururkan iyo kaalinta ay kaga aadan yihiin dhinaca gabdhaha sahra kusoo dhawow Sama TV waa mahadsantahay walaal Ismaaciil aan ka yaro dhexgalo aan ku saxo magacayga walaal waxa la yiraahdaa Zahra Cabdi Xirsi waxaana kamid ahay aasaasyaasha ururka wadaniga Soomaaliyeed horta hooyo noloshu waa hooyo aan u maleynaa hooyo un wax badbaadin karta hooyo waa inay soo saartaa dhalinyaro wax ku oola wax tar tayo leh waxaan rajaynayaa inaan kamid ahay hooyooyinkaas marka ururkan ujeedada loo aasaasayna waxay ahayd isu keenid Soomaali weyn baad goob ah ugu jirno sidii Soomaaliya aan u midayn lahayn aan u qaadleen heeriyada qabiilka baaba ku yimid waxyaalo badan aan lagu kalifayna ururkan sameeyno ujeedada ugu weyn ururka aan u sameeynayna waxay ahayd runtii wadaniyiin in la helo wadanka badbaadiya yani SYL wadaniyiin ay ahaayeen ayaga tusaale noo ah waxaan rajaynayaa jidkii SYL markayna inaan marno sababtoo ah hadda waxa ururkeena wadaniga Soomaaliyeed waxaan nahay ilaa 150 qof ku jirta ururka inta xubinta ka ah inta active-ka ay shaqeynaysan waa la 230 qof ma nagu jiro qof garanaya qabiilkiisa taas waxay ku tusaysaa in aan waxaan nimideeyo oo sukaaya keenay inay tahay Soomaalinimo iyo wadanimo marka anaga ujeedadeena waxay tahay inaan dad wadaniyiin helo oo wadanka xoreeya oo ka xoreeya gaajada oo ka xoreeya dhibaatada jirta oo ka xoreeya qabiilka taas ayaa ururka wadaniga Soomaaliyeed oo aasaasnay ujeedada ugu weyn aan leenahay waxay ahayd oo ilaa hadda aan leenahay inaan helno Soomaali weyn isku duuban Sahra Cabdi aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo taageero intee la eg baad ka haysataan meelaha aad ku nooshihiin haddeer bal inta idina ma u gudbinba kuwa ku nool dalka dibadihiisa bal idinku meelaha aad joogtaan taageero intee la eg baad ka haysataan dadka والله تاجرنا ميرا مالي إلهي كير أنت سقف أي عط صدر سنة صدر ربنا أورك صبيرته تاجرنا ميرا تاجرنا أبد أنت الشعب الصومالي الرجاء يليهم رجاء أنا نجا قبان لأن يجوا أبسين إن تودنين أو تكبت بعدين كرتو مركز رجاءنا وفي أنت تاجرنا وبدنتاي سارة هذا سؤالك الكويديو waxaan filayaa kaalintii haweenka dhinaca dhalinyarada iyo qaabka hadda aad wax u wadaan maadaama raggii aad u eedeysaan oo tirahaan wax dhibaatada keenay oo halkaana dhig waa raggii dumar intee la eg ayaa ururkan xubinka ah oo meel kasta waxaad garanaysaa inay raggu u bataan marka urur la sameeyo wax kastoo la sameeyo raggii baa u bataa marka fursado badan ma helaan haweenku ay wax ku qabtaan marka haween intee la eg baa ururkan hadda kamid aad malaynaysaa والله وينك وبضلنا هاي إن كستو أنت أكتيفك إلى أنو هاي أفر إلى شن أنت أكتيفك أو شقة أورك وضع كذا كله لما أورك كله رجع يا أسوأ بربك الصومال ده وين كله سووا يوين لأن أنا هالبوشة أسكن هاي أنا هذا رجع صارتان لك أنا كارنتين هنا قفنا أصلا صار وين ركفي عن أو وطن كقبط أو وطن كهانتا نعم رجع قلبت إسكملها رجع قصب وعليه طبعا وعشوا وضان ودك وكينا لكن طبعا وين كان السبب وين لأن أنا عارف رجع دمر كهلا أسكننا مكرم كمله نعم ووحي أصلا صارني وواحد وبرودكتين وحيالي أنا جا أصلا صار رجع أنا جا كأنه أصلا صارني مرك إني قدم أنا جا أقول أنا وملينا إن كالين لكن إن شاء الله إلى إنك عارجينا إن أسكال ميسنا أو أنا جا أسكت دوغن أو مع رجع دمر بعيد جرنا وصومالي أهاني ودني أهان أو دكين وبدبادينه أنا جا لبي ديك أخيرني سارة هذا سؤالك الكويديو هذه اللي بعض قبل الصومالية إنه كسب بيران أوركان محا شروط الله حريا كسب بير كران أو حملهم وبنايهن شروط اللي حريا كلي واي متى ودني واي بس شروط كلمة الصومال متى ودني متى ديار متى أنا ودني كحقوق بدي شروط إنه واقع وب أيالين وب كليرا أورك ودني الصوماليات بيج أيوليا ويب سايت كاسة تيجي سامين ممبر ساجر ميسا سكليك على جرين ساتريحسا هالكاسة سكوريسا
shuruudaha ugu waaweyn waxa waa diyaar ma u tahay in wadankaaga iskaa qabso wax ugu qabatid laana hadda iskaa u qabsa u shaqeyna anaga cid lacagna ma siiso cid kuma xirnin dhaqaalo badanaa naga baxo xaflado badanaa organisation dadaan keena dhaqaalo dhan anagaa bixino hadda ani magaalo fog ayaan ka imid jidkaan saarnay harway ayaan saaranahay qarash badanaa iga soo baxay meel lagu qabanayo ururka meel lagu qabanayo wadaniyiin Soomaaliya isugu yimaadeen oo wadankii Soomaaliya wax lagu qabanayo agoonta lagu kaalmeynayo imid 4 saac safar u soo galay nacam taasoo kala rabaa diyaar ma tahay inaad iska xuqabs u shaqeysid diyaar ma tahay inaad wadankaaga badbaadisid adiga oo jeebkaaga adan ka bixinaysid dhaqaalaha oo naftaada iyo maalkaaga iyo magacaaga huraysid nacam saas ayaa la rabaa qof saas oo diyaar u ah jiro oo nagu soo biiri kara ururkeena Sahro boqon kara boggeena la yiraahdo ururka wadanka Soomaaliya dibic Sahro aad iyo aad baad u mahadsantahay